dhakhtarku wuxuu bilaabay inuu gedgediyo warqadaha anigoo arkaya kadibna wuxuu yiri waan ka xumahay gabadhaydiyay laakiin ma awoodo inaan ka qariyo cudurka ku haya asagu waa kansar waana cudur xun si dhaqso ah ayuuna ugu faafayaa jirkaada mana hayno xal aan ahayn inaan goyno jilibka iyo wixii ka hooseeya haddii aad sugto inta lambarkaada laga yeerinayo isbitaalka waqti badan ayay ka qaadanaysaa soo dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa Faa'izo waxaana jira 30 sano waxaan ka dhashay qoys sabool ah waxay qisadaydu bilaabanaysaa markii aan jiray 10 sano waxaan xilligaas joogay iskuulka dabcan waxaan ku jirnay xiisadii ciyaaraha waxaan ciyaaraynay kubadda cagta aniguna waxaan leeyahay saaxiibad lagu magacaabo Sumayo had iyo jeerna labadeenu isku koox ayaan noqon jirnay balse maalintan waan iska soo horjeednay macallimada ayaana sidaas samaysay si aan badeenu u xifaaltano ciyaartuna xiiso u yeelato dabcan Sumayo waxay hadda ka tirsan tahay kooxda naga soo horjeeda si wanaagsan ayaan ugu raaxaysanaynay ciyaarta ilaa aan ugu dambeyn anigoo kubadda ciyaaraya u gambiyay saaxiibaday Sumayo laakiin Sumayo shaaftan nool ayay ii kacday markaas ayay waxyeelo iga soo gaarsiisay lafdheerta ama jilibka iyo cagta inta u dhaxaysa dhulka ayaan ku dhacay macallimada ayaana si dhaqso ah iigu timid waxayna iga bixisay garoonka waxayna siisay xoogaa yar oo baraf ah si aan iskaga saaro meesha ay xanuunaysa markaas ayay ii cudur daaratay saaxiibaday Sumayo aniguna waan iska cafiyay waxaana u sheegay inay tahay dhaawac fudud kadibna waxaan u laabtay gurigeyga hooyaday ayaana aragtay nabarka iiga yaala lugta waxayna igu tiri waa maxay nabarkan waxaan ku iri waa dhaawac fudud saaxiibaday Sumayo ayaana igu dhigtay intii ay soconaysay xiisadii ciyaaraha waxay igu tiri hagaag dharka iska bedel oo kaalay aan qadayne nabarkii ayaan iskaga masaxay suuf qoyan kadib markii aan mariyay jeermis dile dharkina waan iska bedelay waxaana u jihaystay dhanka miiska qadada sidii caadada ii ahaydba maalinkaasna wuxuu i dhaafay anigoo nabad qaba laakiin markii aan soo kacay subaxdii maalintii xigtay ayaan xanuun badan ka dareemay nabarkii hooyaday ayaan u sheegay waxayna igu tiri ha ka walwalin nabraha oo dhan waa sidaas si kalarkiisu u noqdo mid buluug ah xanuunka kadibna si tartiib ah ayay nabarka iyo raadkiisuba u qarsoomayaan waxaan ku waafaqay hadalkeeda waxaana aaday dhanka iskuulka maalinkaas xilligii bareega gabdhaha oo dhan way ciyaarayeen marka laga reebo aniga kursi ayaan iskaga fadhiyay barxadda iskuulka xanuunkana waxaad moodaysaa in cirbad lagu tolayo lugtayda kadibna Sumayo ayaa ii timid waxayna igu tiri inakeen Faa'isoy maxaad halkan ka qabanaysaa waxaan ku iri suurtagal iima ahan inaan ciyaaro anigu waan daalanahay way ii soo dhawaatay waxayna soo fariisatay dhinacayga waxayna igu tiri khayr sheeg Faa'isoy ma waxa jira wax ay maskaxdaadu ku mashquulsan tahay waxaan ku iri xaqiiqadu waxay tahay in nabarka iiga yaala lugta uu i xanuunayo mana socon karo inaan dhutinayo maahane waxay igu tiri inakeen Faa'isoy iskana dhaaf suuraha kani waa nabar aad u yare maalmo ayaa ka soo wareegatay meesha uu nabarku iiga yaalana way sii bararaysaa maalinba maalinta ka dambaysa hooyaday ayaa iga dhayday laakiin taasi waxba iima aysan tarin waxaan tijaabiyay talo ay siisay maamo dariskeenna ah waxaana ka mid ahaa taladeeda inaan isticmaalo saytuun iyo basal kulul iyo hal abuuro kale oo aad u fara badan xanuunkayguna wuu sii darsanayaa waxaana bilaabay inaan soo kaco habeenkii anigoo la oynaya xanuunka lugtayduna aad ayay u barartay waxayna gaartay heer ay sii quruntay allaha idin karaameeye aabahay wuxuu ahaa nin faqiir ah oo aan shaqaynin kaliya wuxuu sugaa sadaqada ay noo keenaan dadka muxsiniinta ah si uu noogu keeno wixii aan cuni lahayn qoyskeenuna wuxuu ka koobnaa walaalkay Raa'id oo jira 7 sano iyo walaalkay Cabdisamed oo jira 2 sano haddaba siday suurtagal ku tahay in aabahayga faqiirka ah uu bixiyo lacagta laygu daaweynayo anigu ma aanan awoodin inaan aado iskuulka saaxiibadayna guriga ayay igu soo booqan jireen gaar ahaan saaxiibtay Sumayo taas oo dareemaysay qoomamo iyo shalayto subaxyada kamida ayaan soo kacay anigoo dareemaya qandho aad u heer sareysa Sumayo ayaana isoo
booqatay aad ayayna uga naxday xaaladeyda kadibna si degdeg ah ayay guriga uga baxday bixitaankeedii waxaa ka soo wareegatay ku dhawaad hal saac halka hooyadayna ay fadhisay dhinacayga ayadoo la tacaalaysa sidii ay iga kala yaraan lahayd qandhadu kadibna si kadis ah ayaan u maqalnay albaabka oo la soo garaacayo hooyaday ayaa ka furtay saawaaba Sumayo oo soo laabatay waxayna keentay xoogaa lacag ah waxayna tiri iga guddoon habar yar waana inaad sida ugu dhaqsiyaha badan faa'iiso u qaado isbitaalka ficlan hooyaday waxay aaday qolka aabahay lacagtii ayayna u dhiibtay kadibna wuxuu noo kireeyay gaari taxi ah wuxuuna ii qaaday isbitaalka magaalada markii aan halkaas tagnay ayuuna dhakhtarku aad ugu canaantay aabahay sida uu uga gaabiyay inuu mar hore i keeno isbitaalka wuxuuna ii diray baaritaano iyo in kombiyuutarro kala duwan la isaaro wuxuuna aabe ku yiri hawshan ku dhaqaaq sida ugu dhaqsiyaha badan maxaa yeelay xaaladda gabadhu waa mid khatar ah laakiin si lacagta u soo hartay aabahay aad ayay uga yareed lacagta la iska rabo sidaa darteed aabahay wuxuu go'aansaday inuu farmashiga iga iibiyo kaniiniyaal xanuun baabi'iyaal ah oo dhakhtarku ii soo qoray waxaana u laabanay gurigii waxaan fiiriyey lugtayda saanabarkii ayaa gaaray ilaa iyo jilibka qolkayga ayaan ku jiray waana iska ooyey mar waxaan la ooynayay xanuunka nabarka marna waxaan la ooynayay cabsida uu igu beeray hadalkii dhakhtarku yiri waxaa ii yimid walaalkay Raa'id wuuna kadibna wuxuu aaday qolkii aabahay wuxuuna ku yiri aabe faa'iiso aad ayay u xanuunsanaysaa waan ku baryayaa ee wax uun sameey aabe ayaa ugu jawaabay waan ogahay inay xanuunsan tahay wiilkaygiiyow laakiin ma garanayo wax aan sameeyo shaqo ayaan raadiyey waana waayey suurtagalna iima ahan inaan dadka sadaqo weydiisto wiilkaygiiyow annagu waxaan nahay dad ka dhowrsada gacan hoorsiga dadka kale heer ay dadka qaar noo maleeyaan dad wax haysta cidna gacanta uma taagano Raa'id ayaa ku yiri alle ha ku hanuuniyo aabe xaaladda faa'iiso ma ahan mid laga dhowrsan karo waan ku baryayaa ee u tag qof kasta oo aad isgaranaysaan oo weydiiso lacagta dhakhtarka ku baxaysa oo waxaad ku dhahdaa wiilkayga Raa'id ayaa lacagtaas idin siinaya marka uu weynaado kadibna labadayda waalid ayaa iska ooyey xilli ay sidaas iskaga ooynayeen ayaan maqalnay albaabka oo la soo garaacayo Raa'id ayaa albaabka furay saawaaba saaxiibaday Sumayo aabaheed aabahay ayaa yiri soo dhawow oo soo gal gudaha Abu Aymanow Abu Ayman ayaa yiri ilaahay ha ku karaameeyo Abu Raa'idow waxaan soo iibsaday gaari waxaana rabaa inay dalxiis noo raacaan faa'iiso iyo Raa'id si aan u tijaabiyo gaarigayga cusub aabe ayaa ku yiri laakiin faa'iiso way xanuunsan tahay mana u malaynayo inay idin raaci karto ee Raa'idow u tag oo soo weydii kadibna Raa'id ayaa ii yimid anigu markii horeba waan maqlayay hadalkooda Raa'id ayaana ku haa waan raacayaa ee waxyar isuga waan isdiyaarinayaaye waxaan ku waafaqay inaan baxo si aan nafsad ahaan ugu soo dego dalxiiskaas isla markii aan baxayba adeer Abu Ayman ayaa arkay lugtayda iyo aniga oo dhutinaya wuxuuna yiri maxaa kugu dhacay faa'iisooy khayr ayay noqonaysaa insha Allah anigu waan aamusay aabe ayaana u jawaabay oo yiri dhakhtarka ayaa noo sheegay inay yara barartay daawo ayaana u soo iibiyay weyna caafimaade insha Allah Abu Ayman ayaa yiri kadibna maxaa xiga daawo oo kaliya ma tahay xal waxaa muuqanaysa in arrinkani uu ka weyn yahay daawo kadibna Raa'id ayaa yiri maya adeer dhakhtarku wuxuu yiri gabadhan arrinteedu waa khatar wuxuuna noo diray baaritaano iyo kombiyuutarro kala duwan kadibna Abu Ayman ayaa yiri aad ayaan uga murugooday warkaas Abu Raa'idow maxaad iigu imaan weysay anigu waxaan ku tixgeliyaa sida walaalkay ila dhashay dhibsa ma lahan ee haye Raa'idow Ayman iyo Sumayo ayaa nagu sugaya gaariga dhexdiisa kadibna waxaan aadnay dhanka gaariga dabcan Ayman iyo aabihiis qaybta hore ayay saarnaayeen wuxuuna Ayman aniga iga weynaa 3 sano balse aniga Sumayo iyo Raa'id waxaan fadhinay qaybta gadaale waxaan aadnay dhanka isbitaalka waxaana laygu sameeyay dhammaan baaritaanadii loo baahnaa dhiigag layga qaaday iyo kombiyuutarro lay saaray intaba Sumayo aabaheed ayaana dhiibay dhammaan kharashaadkii loo baahnaa waxayna naga dalbadeen inaan jawaabta u soo laabanno maalmo kadibna waxaan u sii dalxiis tagnay dhanka keynta cabbaar ayaana halkaas ku nasanay aniga iyo Sumayo sheeko ayaan u fariisanay halka Ayman iyo Raa'idna ay kubad cayaarayeen waxaan soo qaadanay waqti aad u qurux badan kadibna waxaan ku soo laabanay guryaheennii maalmo kadib adeer Abu Ayman ayaa keenay jawaabtii isbitaalka isla markiina wuxuu ii waday dhakhtarku wuxuu bilaabay inuu warqadaha gedgediyo anigoo arkaya kadibna wuxuu yiri
waan ka xumahay gabadhaydiyey laakiin ma awoodo inaan kaa qariyo cudurka ku haya haa asagu waa kansar waana cudur xun si dhaqso ah ayuuna jirkaada ugu faafayaa mana hayno xal aan ahayn inaan goyno jilibka wixii ka hooseeya haddii aad sugto inta lambarkaada laga yeerinayo isbitaalka waqti badan ayay kaa qaadanaysaa xanuunkuna wuu kugu sii faafayaa balse isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay haddii aad tagtaan lacag aad u badan ayaa idinkaga baxaysa hadalkaas maqalkiisa ayaan la argagaxay Abu Ayman ayaa gacanta iga qabtay wuxuuna yiri ha cabsanin aniga ayaa ku garab taagan kadibna dhakhtarkii ayaa yiri mudane waxa halkan joogta dhakhtarad nafsi ah waad sii mari kartaan si ay ula hadasho Faa'iso aniga ayaa ku iri waxba loogama baahna wuxuu igu yiri ha welwelin gabadhaydiyey wax walba oo uu alle nagu imtixaanayo ayaga ayaa noo khayr badan waxaan ku iri alxamdulillaah anigu raalli ayaan ku ahay waxa uu alle ii qoray kadibna isbitaalkii ayaan ka soo baxnay waxaana u jihaysanay dhanka gurigeenna adeer Abu Ayman ayaana labadayda waalid u sheegay wixii uu dhakhtarku yiri hooyadayna way iska ooysay aabahayna in badan ayuu ii cudur daartay Abu Aymanna wuu iska baxay waxaana bilownay inaan ka fikirno lacagta ku baxaysa qaliinka aabahay ayaa u tagay dhammaan qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa asagoo lacag weydiisanaya kadibna wuxuu aruuriyay lacag macquul ah adeer Abu Ayman ayaana dhammaystiray lacagtii ka dhimaneed qaliinka haa daawo ayay dhaqaatiirtu isiin doonaan kadibna waan hurdi doonaa mana dareemi doono wax xanuun ah sidaas ayayna ahayd sidii uu dhakhtarku noo sheegay waxay iga goyn doonaan jilibka wixii ka hooseeya waxaana hurdada ka soo kici doonaa anigoo leh hal lug oo kaliya balse maalintii lagu ballansanaa in qaliinka laygu sameeyo ayay ii direen dhanka isbitaalka si baaritaankii ugu dambeeyay la iigu sameeyo ka hor inta aan qaliinka laygu samayn dhakhtarkii ayaa i baaray kadibna aad ayuu u yaabay kadibna taleefankiisa ayuu qabsaday wuxuuna la xiriiray qof kale waxaana maqlay asagoo dhahaya waxaan u malaynayaa in khalad uu jiro maxaa yeelay xanuunku wuxuu ku sii faafay 2 taako oo jilibka ka koraysa baaritaanka ayaan mar kale ku celinaynaa si aan u hubino waxaan horay raalli ugu noqday in layga gooyo jilibka wixii ka hooseeya dabcan naf ahaan waa niyad jabsanahay waxaan ku iri lugtayda oo dhan miyaa layga goynayaa digtoore wuxuu igu yiri ha ka cabsanin gabadha waan hubinaynaa oo kaliya baaritaankii ayaa mar kale laygu celiyay markaas ayaana miyir daboolmay isla markiiba waxay igeliyeen qolka qaliinada waxaana qaliinkaygu qaatay 7 saacadood halka qoyskayga iyo qoyska Abu Ayman ay nagu sugayeen hoolka isbitaalka waxayna sugayeen soo bixitaankayga dhakhtarkii qaliinka sameynayay ayaa baxay wuxuu aaday dhankooda wuxuuna ku yiri alxamdulillaah qaliinkii waa lagu guuleystay laakiin hooyo ayaa ku tiri laakiin maxaad ula jeedaa wuxuu ugu jawaabay waxaa la gooyay 2 taako oo jilibka korkiisa ah wixii ka hooseeya sababtoo ah si degdeg ah ayuu ugu faafayay jirkeeda laakiin hadda wixii ka dambeeya looma cabsanayo waxaana isticmaali doonaa daawooyin kale oo kiimika ah si aan u hubino in jirkeedu uu ka maran yahay cudurkaas dhammaantood way iska ooyeen gaar ahaan saaxiibaday Sumayo waliba ayadoo ku qaylinaysa aniga ayaa sabab u ah Ayman ayaa gacanta ka qabtay wuxuuna ku yiri sidaas hadhiin walaashaydiyay adigu ma aadan rabin in waxaan ay dhacaan adigu waxa tahay saaxiibteed waana ognahay inaad aad u jeceshahay markii aan soo miirsaday dhammaantood hareerahayga ayay soo istaageen waxaana arkay meesha laga gooyay lugtayda waan dhoola cadeeyay waxaana iri alxamdulillaah allahayow raalli ayaan ku ahay wixii aad ii qadartay hortayda ayay soo istaageen way is adkeeyeen ayagoo dhoola cadeynaya si ay niyadda iigu dhisaan maalmo ayaa ka soo wareegatay daaweyn ayaana igu socotay muddo arrinku wuxuu ahaa mid aad u xanuun badan tintii ayaa iga daadatay kadibna sunniyihii waxaana u ekaaday sida ruuxaanta muddo kadibna Abu Ayman ayaa hadiyad ii keenay ma ilaabayo wixii uu ii sameeyay inta aan noolahay asaga iyo Ayman ayaa igu soo booqday isbitaalka waxayna ii keeneen box aad u dheer kadibna Ayman ayaa igu yiri iska qiyaas waxa aan ku keenay Faa'isoy waxaan ku iri haye Aymanow anigu waxaan basugi la ahay inta aan ka arkayo waxa kartoonka ku jira ee fura Aymanow Ayman ayaa yiri waa lug gacan ku samays ah maanta laga bilaabo waad xiran kartaa mana dareemi doontid inay lug ka go'an tahay kabaha aad doonto ayaad ku qaadanaysaa
soconaysaa inta aad doonto ayaadna ku socon kartaa xitaa qoobka ciyaar waad ku samayn kartaa kadibna Abu Ayman ayaa yiri waxaadna soo booqan kartaa saaxiibta Sumayo adigoon u baahan wax gaari ah waxaan ku iri waa arrin wanaagsan balse waxaan rabaa inaan idin weydiiyo maxay Sumayo ii soo booqan weysay laga soo bilaabo maalintii qaliinka laygu sameeyay way aamuseen kadibna Ayman ayaa yiri xaqiiqadu waxay tahay Sumayo waxay dareemaysaa shalayto waxayna u malaysaa inay sabab u ahayd wixii kugu dhacay waxaan ku iri alla taasi sax maahan ee bariha ay imaato waxaan rabaa inay ila joogto marka isbitaalka la iga bixinayo maalintii xigtayba sawaaba qoyskeygii iyo qoyska Sumayo oo sida ubaxyo iyo buufino ayagoo u dabaaldegaya in daawadii ii dhamaatay isbitaalkana la iga saarayo Sumayo ayaan gacmaha isqabsanay waxaana aadnay dhanka xafiiska dhakhtarka waan galnay waxaana ku iri assalaamu calaykum doctore waxaan rabaa inaad u sharaxdo saaxiibaday wixii aad ii sharaxday dhakhtarkii ayaa yiri وعليكم السلام soo dhawaada waan fareysanay wuxuuna yiri xaqiiqadu waxay tahay cudurkan kansarka ah wuxuu faa'iiso jirkeeda ku jiray ka hor inta uusan dhaawacaani soo gaarin haddii aysan ahaan lahayn ilaahay fadligiisa kadibna nabarkaas xilli wanaagsan lama ogaan lahayn cudurka waxaana suurtagal noqon lahayd inay faa'iiso dhimato Sumayo ayaa tiri laakiinse maxaa tiri sax miyaa warkaas mise waa waxaad isku soo waafaqdeen waxaan ku iri maya Sumayo iska badaayo waa xaqiiqo adigu waxa tahay saaxiibadeyda qaaliga ah oo xitaa haddii dhaawacaas aad ii geysatay uu sababi lahaa cudurka marna caloosha waxba kuuguma aanan qaadeen oo anigu waan ku jeclahay kadibna Sumayo laabteeda ayay ii gelisay annaga iyo qoysaskeenuna waan ka baxnay isbitaalka waxaa ka soo wareegatay sanado iyo sanado waan waaweynaanay si wada jir ah ayaana wax u baranay mar ayada ayaa isoo booqan jirtay marna aniga ayaa booqan jiray mararka qaar waxaan is arki jirnay Ayman niyada ayuuna ii dhisi jiray in badan ayaana farxadda wada qaybsan jirnay saddexdeenu marna ma aanan dareemi jirin inay lug iga go'an tahay mana u maleynayn in gabdhaha saaxiibaday ah ay waxay dheer yihiin Ayman ayaana aniga iyo Sumayaba casharada noogu celi jiray aabahay wuxuu helay shaqo wanaagsan waxbarashadiina way noo dhamaatay waxaana isla markiiba ka shaqo bilaabay shirkad uu leeyahay Sumayo aabaheed aniga iyo Sumayana waxaan ka wada shaqeyn jirnay hal xafiis halka Aymanna uu maamulo ka noqday shirkadii aabihiis mararka qaar shaqada waan ku daali jirnay kadibna aniga iyo Sumayo waan xeeladaysan jirnay waxaana bixi jirnay Ayman oo aan ogaanin in shaqadeenu ay qabyo tahay waxaan u maleynayaa inuu na fahamsanaa jiray laakiin wuxuu diidayay inuu na canaanto ama waxa laga yaabaa inuu Sumayo canaanan jiray anigoon ogeyn laakiin aniga marna ima uusan canaanan jirin maalin maalmaha kamida ayaan shaqada imid anigoo soo daahay xafiiska ayaan tagay Sumayo maba joogto gabadhii xoghayaha ahayd ayaa ii timid waxayna igu tiri maamulaha ayaa adiga iyo Sumayaba idin raadinayay mana uusan idin arkin dhab ahaantii aad ayuu u careysan yahay wuxuuna yiri xafiiskayga ha igu imaadaan marka ay yimaadaan waxaan ku iri ma wax mushkilad ah ayaa jira waxay igu tiri wallaahi ma garanayo asaga waa inaad weydiiso arrintaas waxaan ku iri hagaag waxaan isku dayayaa inaan la xiriiro Sumayo markaas ayaan aadaynaa xafiiskiisa gabadhii way iga tagtay halka aniguna aan qabsaday taleefankayga waxaan la xiriiray Sumayo laakiin way iga qaban weysay dhanka xafiiska Ayman ayaan aaday anigoo niyada iska dhahaya weligay ma aanan arag Ayman oo xanaaqsan talow yaa ka careysiiyay xafiiskiisa ayaan gaaray ka hor inta aanan furin albaabka ayaa waxa la soo garaacay taleefankayga waxa isoo wacaysa Sumayo waxaan ku iri hello Sumayo xageed joogtaa waxay igu tiri anigu waan xanuunsanahay shaqadana ma imaan karo maanta misad koolkaada waan arkay ma wax mushkilad ah ayaa jira waxaan ku iri ma garanayo gabadha xoghaynta ayaa ii sheegtay in Ayman uu careysan yahay waxay igu tiri dib ma lahan haddii aad rabtid in caradu ay ka ba'do waa inaad cudurdaaro badan diyaarsataa albaabka ayaan garaacay waxaana galay xafiiskiisa waxaana ku iri soo dhawow ma adiga ayaa ii yeeray Aymanow wuxuu igu yiri maanta laga bilaabo waa inaad iigu yeerto maamulo Ayman
waan qoslay waxaana ku iri maxaa dhacay toos wax iigu sheeg Aymanow oo haddaba maxaa dhacay si caro leh ayuu ii fiiriyay wuxuuna yiri anigu ma kaftamayo aad ayaana uga carooday in shaqadii shalay ay weli qabyo tahay waxaad bilowdeen dayacaad halkaanina waa meel shaqo mana ahan beer la isku ammaano wajigayga waxaa ka baaba'ay astaamihii dhoolla cadaynta anigoo xishoonaya ayaana iri waan ka xumahay in badan ayaana kuu cudur daaranaya maamule Aymanow wuxuu igu yiri kadibna maxaad la soo dahday saakay waxaan ku iri cudurdaarkayga waxaa laga yaabaa inaad rumayso weyso laakiin waa kuu sheegayaa maxaa yeelay waxaan ogahay inaad tahay walaalkay oo kale aadna ifahmi doontid maalmihii ugu dambeeyayba waxaa iga sii yaraanaysay lugtii gacan ku samayska ahayd maxaa yeelay miisaankayga ayaa yara siyaaday sidaa darteed socodka ayaa dhib ugu ahay 5 sanaba hal mar ayaan iska bedeli jiray laakiin markaan waan ka dib dhacay Ayman xanaaqii ayaa ka yaraaday wuxuuna yiri anigu ma ihi walaalka oo kale ilaan waxaan bar rabaa inaad xaaskayga noqoto markaas ayaan ku fahmi doonaa inta nolosheena ka dhiman aad ayaan u yaabay waxaana u maleeyay inuu kaftamayo laakiin haddana wajigiisa waxaa ka muuqanaysa inay dhab ka tahay waxaan ku iri ma aniga ayaad igu jeesjeesaysaa mise naxariis u muuji ayaad isleedahay wuxuu igu yiri maya anigu waan ku jeclahay Faa'iisooy waxaana ku jeclaa muddo aad u fog mana awoodo xitaa inaan kugu qayliyo waana kaaga cudur daaranayaa sidii aan kuula dhaqmay balse waxay ahayd jilliin oo kaliya si aan kadis kaaga dhigo dalabkayga waxaan ku iri iska badaayi waxaad ka naxday xaaladeyda codkaaduna wuu isbedelay markii aan kaaga waramay lugteyda waxaan kuu maleynayay walaalkay oo kale oo iigu dul qaadanaya nusqaanteyda waan ka xumahay inaad sidaan ila dhaqanto wuu ii soo dhawaaday wuxuuna igu yiri waan kuu dhaaranayaa inaysan naxariis iga ahayn waxa aan kuu sheegay anigu si dhab ah ayaan kuu jeclahay laakiin had iyo jeer waan ka cabsan jiray inaan kuu sheego waxaana rajaynayaa inaad aqbali doontid dalabkayga oo aad raalli ku noqon doonto inaad nolosha ila wadaagtid ma garanayo sababta aan ugu qanci waayay hadalkiisa Ayman waa wiil wanaagsan waa aqoon-yahan xilkas ah laakiin haddii aan ku waafaqo dalabkiisa waxaan u maleynayaa inay dhibaato ku tahay asaga waxaana ka cabsanayaa inaan gadaal ka ogaado inuu ii guursanayo naxariis uu ii naxariisanayo darteed xafiiskii ayaan ka soo baxay anigoo degdegaya gabadhii xoghaynta ayaan sii maray waxaana ku iri waxaan u baahanahay fasax ka bilaabanaya maanta kadibna waxaan aaday guriga isla markii aan tegayba waxaan arkay Sumayo oo halkaas joogta waxayna ii sheegtay inay isku waafaqeen inay shaqada ka maqnaato si Ayman uu iskaga dhigo qof i canaananaya kadibna uu guur iigu soo bandhigto waxayna ii sheegtay inuu isagu la soo xiriiray oo u sheegay inaan shirkadda ka soo baxay si ay ayadu halkan iigula kulanto waxayna isku dayday inay ugu qanciso arrintaas labadayda waalidna aad ayay ugu farxeen arrinta halka Raa'idna uu taageero ii muujinayay asagoo dhahaya aniga ayaa garab kugu siinaya go'aan kasta oo aad qaadatid si fiicanna uga fakar arrinta tani waa mustaqbalka noloshaada kadibna waxaa dilaacay cudurka COVID-19 shaqadiina waan joojinay taasina waxay noo ahayd fursad aan dhammaanteen ku nasanno balse anigu ilaa hadda go'aan ma aanan qaadan ma Ayman ayaan guurka ka aqbalaa amanse hadhow ka shalaaya go'aankaas adinku maxaad samayn lahaydeen haddii aad booskayga joogi lahaydeen hagaag weli anigu arrinka waan ka fikirayaa adinkuna taladiina igu soo qora qaybta hoose aniguna waan ka fikirayaa maxaa yeelay arrinku fikir badan ayuu u baahan yahay ee inta laga gaarayo qisada soo socota iyo khibradda ku jirta iyo weliba kanaalka Ifiya Show waxaan idin leeyahay tan iyo kulanti dambe